cisbitaalka manhal ee magaalada Hargeysa ayaa gaari booyada ugu deeqay cisbitaalka dhimirka ee Geeska Afrika oo hadda ay dhamaad ku dhowdahay qalabayntiisu. munaasabad kooban oo lagu qabtay isla xarunta cisbitaalka dhimirka ee Geeska Afrika waxaa hadallo ibafura ka soo jeediyay agaasimaha cisbitaalka manhal Dr. Maxamed Cabdisalaan Cali oo sheegay inay uga dan lahaayeen deeqda gaarigaasi inay ku garab istaagaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya, waxaana uu halkaasi ka ballan qaaday in ay ka caawin doonaan cisbitaalkani marka uu dhammaado qalabayntiisu qalliinada, dawooyinka iyo weliba shaybaadhada intii karaankooda. cisbitaalkani waa cisbitaal mudan in wax la taro, la garab istaago, waayo cidda uu cisbitaalkan loogu talagalay ay garteen hablahaasi inay u dhisaan waa dadka ogtiin duruuftooda, dadka ugu nugul weeye bulshadeenna, waa dadka dhimirka ka xanuunsanaya, waa bulshadeennii qaybtii ugu muhiimsanayd oo runtii qadar Ilaahay uu ku dhacay, dayacaadina ay haysato, gidaar wal iyo guri wal iyo meel walbana ku dayacan oo mudan kan iyo 70 la mid iyo 100 la mid in loo dhiso oo qaran ahaan iyo qoomiyad ahaan iyo shakhsi ahaan iyo wadar iyo waaxid labadaba la isu garab taago oo intan ku filayn oo wadidiisi leenaga doonayo oo dhaqaalihiisi leenaga doonayo oo daryeelkiisi leenaga doonayo oo dadkii aynu xareyn lahayn iyo si loo daryeelaa inay dhammaan la isu kaashado. tacaawunu cala albirri wattaqwa la tacaawunu cala al-ithmi wal udwan. tacaawunkii sharciga ah ee Ilaahay sheegay ayaa la rabaa in meesha lagu dhabeeyo. inta hadaan ka soo gudbo gaariga booyada kulay waa deeq yar oo kooban, laakiin waxaan isleeyahay qayb uu ka qaadan doona insha Allah taala. gaarigaasina runtii waa gaari 40 foosta qaada oo shaambooya, waa gaari runtii imka nadiif ah oo la dayactiray oo aad loo imka u wanaagsan xaaladiisu. waxaan rajaynayaa in gaariga la ilaaliyo si uu u hirgeliyo ujeedadii laga lahaa ee loo bixiyay. marka anagu booyadan oo quramaan bixinaynaa waxaanu diyaar u nahay cisbitaalkaas intuu cagaha ku istaagayo in aanu waxa la wixii la nooga baahdo, haday tahay daryeelka bukaanka lagu xareynayo, haday tahay shaybaadkooda, haday tahay xataa hadii qaar la qalayo inaan la garab istaagno. taana waa ballan qaadaynaa insha Allah taala. imikana furaha gaariga ayaan ku wareejinayaa Sahra, gudoomiyaha ayaan ku wareejinayaa naga gudoon gaariga furihiisa wakaa xarigiisa qabo aadmi kale kuma xurmeeyeen bay oran jireen. gudoomiyaha gudida dhakhtarka dhimirka ee Geeska Afrika Marwo Sahra Biixi Coomay iyo agaasimaha xarunta dhimirka Dr. Axmed Cananuug ayaa si isku mid ah ugu mahad celiyay maamulka cisbitaalka manhal, waxaana ay la uga baryeen inuu ka abaal mariyo deeqdaasi uu ugu deeqay bulshada dhimirka ka xanuunsanaysa ee ku dayacan magaalada Hargeysa. mahadnaqa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kadib waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba bulshadayada aad u qiimaha badan leh ee reer Somaliland, hadday tahay culimaa u diin, hadday tahay ganacsato iyo haddii ay tahay bulshada heerkeeda kala duwan, sida ay uga qayb qaateen ee gacanta mugale uga qaateen dhakhtarkan dhimirka ee Geeska Afrika. waxaan halkan ka bogaadinayaa anigoo ku hadlaya magaca hablaha gaaroodi maamulka dhakhtarka manhal, cisbitaalka manhal iyo gaar ahaan agaasimaha dhakhtarka manhal Dr. Maxamed Salaan Cali oo maanta nagu gudoonsiiyay gaari booyada oo dhakhtarku uu leeyahay. gaarigaasi ka hor Maxamed Salaan waa muruqa iyo maskaxda iyo maalka ka dambeeyay dhakhtarkan in badanna ka qayb qaatay. waana dhakhtarka ugu talagalay inuu la qaybsado hawl maalmeedka laga bilaabi doono dhakhtarkan, hadday tahay shaybaadh iyo haddii ay tahay daawooyin iyo haddii ay tahay wixii dhakhtar la xiriiro oo dhan, iyagoo noogu ballan qaaday arinta qiimaha ballaaran. Maxamed Salaan iyo Manhal Hospitalna aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa. ma aha markii ugu horeysay ee Maxamed wax taraan
runtii qalab isbitaalku leeyahay maintenancekiisa iyo waxa asaga qabtay maxamed wuxuu noo ballan qaaday in wax allaali wixii shaybaara amba qalliin amba daweyna ay u baahdaan dadkan isbitaalka la soo dhiga in ay qabtaan iyagu haddii Allah ka dhigo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahadnaqaynaa dhammaan hablaha gaaroodi dal iyo dibadba meesha ay joogaan waxaan u mahadnaqaynaa mar labaad maxamed salaan oo leenahay maxamedow gaarigaad gacanta nagu soo gelisay wuxuu noqon doonaa gaariga adeega isbitaalka maxamed bedel guuleed iyo sheekh cabdiraxmaan aw axmed oo iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey ayaa bulshada u diray fariina in si weyn looga qayb qaato daryeelka xaruntaasi iyo weliba dhammaystirka qaybaha hadhay iyagoo ku baaqay inaan cidna laga xigin ciddii wax ku darsanaysa dhismaha xarunta dhimirka geeska Afrika. bulshada samaha jecel waxaan u sheegaynaa cid kasta oo dhakhtarka wax ku darsanaysa inay u furan tahay waxaan u sheegaynaa dhakhtarku inuu leeyahay guddi ka kooban culimo ganacsato aqoon-yahan iyo haweenintaba cid kasta oo dhakhtarkan wax ku darsanaysa si sharciya oo aan madmadow ku jirin ayay ugu darsan kartaa dadka ammaanada loo dhiibo dadkii ugu mudnaa ayaa dhakhtarkan gacanta ku haya dadaan adduunyo ka rabin dadaan mushahar ku qaadanin waad arkaysaan waa hablaheennii culimadeennii ganacsatadii inta halkaa taaganaya in kale oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba joogta oo dhakhtarka waxay taraan mooyaane aan waxba ka sugaynin ayaa gacanta ku haysa marka deegaan kasta haddaad tahay iyo gobol kasta haddaad ku nooshahay iyo shakhsi kasta haddaad tahay dhakhtarkaasi waa dhakhtarkaagii waanu kuu baahan yahay waanu ku soo dhawaynaynaa nagu soo biir oo wixii aad hayso ku soo dar aad baa runtii ay u mudan yihiin in loogu mahadnaqo waxa kaliya meesha yaala waa duco iyo dardaaran ducada waxaan leeyahay intii ka soo qayb qaadatay iyo hawsha maanta aynu u taaganahay ee ah halkii ugu mudnayd in booyad isbitaalku iska leeyahay oo u gaara oo maamulkiisa uu gacanta ku hayo lagu wareejiyo hawl fudud maaha waa runtii waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid tahay aad iyo aad baan ugu ducaynayaa manhal iyo maamulkaba ilaahay haydan barakeeyo khayr Allah idin siiyo ilaahay baa wuxuu dhiibateen in ilaahay wuxuu dhiibteena waxba uma baahna hadalba uma baahna waxa ilaahay ka banay ilaahay ka aqbalo qabuulku waa muhiim ikhlaas ilaahay ka dhigo idin ka aqbalo misaan saadka ilaahay idin saaro maxamed salaan runtii aad uga soo shaqeeyna si gaar ah ayaan ugu ducaynaa ugu mahadnaqaynaa ilaahay ha barakeeyo dadku runtii iyagoo deewaad yaani wax karin kara haddana dadna way xilqaamaan dadna iyagoo kari kara hakradaan runtii ma hakranaysa si fiican buu maanta uga soo shaqeeyay ilaahay ha barakeeyo isbitaalka manhal la sharaf weyn bay u tahay maamul ahaan runtii si gaar ah ayaan ugu mahadnaqaynaa hablaha iyagoo hore ducada u qaateen oo ugu sii dareynaa tukala markuu si buuxinaynaa Allah si barakeeyo ubadka Allah u galiyo adduunkooda Allah ku wanaajiyo aakhirada Allah ku wanaajiyo cid kasta oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sakhro inay wax ka qaadato isbitaalkan iyo hirgelintiisa iyo socodsiintiisa waxaan ugu baaqanayaa ka qayb qaataan oo khayrka bilaamay ee la soo waday ka qayb galaan isbitaalka dhimirka geeska Afrika waxa si tabarucaad u hirgeliyay ururka samafalka ee hablaha gaaroodi kuwaasi oo wali iyagu gacanta ku haya iyadoo dhakhtarkanina laga hirgeliyay duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa maxamed cabdi qalinle muqbaahiyaha bulsho Hargeysa.